waxaa maalinta berito la soo gabagabay doonaa dacwadda baddeedna ay Kenya muranka gelisay taas oo ka furan maxkamadda caalamiga ee ICJ isla markaana ay ka qaybgalayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale mudanayaal kale oo ka tirsan dowladda federaalka. iyadoo arrintaasi jirto ayaana waxa walaac xoogan uu soo food saaray Kenyaanka ku nool magaalo xeebeedka Lamu iyagoo oo sheegay in aysan ammaan ahayn biyaha badda ee Lamu. mid ka mid ah kuwa ka jilaabta kalluunka ayaa waxa uu sheegay in ay 50% noloshooda noqon doonto mid hoos u dhacda haddii ay waayaan kalluunkani. sidoo kale waxa uu sheegay in ay dadka Lamu yihiin kuwo aqoon-yahano ahayn wax kale oo ay maal gastaan aysan haysan. I can say if we are losing fishing, we can say we are losing 50% of our livelihood. Because normally our community in Lamu East, it is not educated. So, and Lamu County, we have no any industry to be invested. kan uu hadlayay kalluumaysatada reer Kenya ee calacalaya ayaa waxa uu sheegay haddii ay lumiyaan kalluunkani in gabi ahaanba noloshooda ay noqon doonto mid burburta. So if we are losing the fishing ground, we are totally losing our life.